geedka barakaysan ee timirta waa geed ka baxa dhulka kulaylaha, gaar ahaan dhulka aanay ku samaysmin badi dalagyada kale ee la quutaa. Dhulka ay timirtu ka baxdo waxa kale oo la yidhaahdaa lamadegaan, waana dhul saxare ah oo cimilo ahaan aad iyo aad u kulul. Laakiin timirtu waxay leedahay faa'iidooyin badan, waxayna caawisaa qaybo badan oo ka mid ah jidhka aadanaha. Haddaba faa'iidooyinka iyo mucjisooyinka uu koobsaday geedka timirtu ma aha midaynu muuqaalkan ku soo koobi karayno, laakiin waxaynu xusi doonaa waxyaabaha ugu caansan ee laga dhaxlo isticmaalka timirta. timirtu waxay dhintaa heerka kolestaroolka ee dhiigga, waxayna ka ilaalisaa xididada dhiigga qaada qalafsanaanta, sababtoo ah waxaa ku jirta timirta maadada loo yaqaano pectin. Sidoo kale timirtu waxay ka hortagtaa kansarka xiidmaha, waxayna qofka ka ilaalisaa xanuunka babaasiirta, waxayna yaraysaa dhagaxaanta ku dhasha kaadihaysta. Waxay sidoo kale fududaysaa marxaladda uurka iyo dhalmada iyo weliba dhiigga ka dambeeya. Timirta waxaa kaloo ku jira fiber aad u wanaagsan iyo sonkoro dhaqso u riiqma. dhinaca kalena timirtu waxay joojisaa in ilkaha uu suusgalo, sababtoo ah waxaa ku jirta maadada loo yaqaano fluoride. dhinaca kalena timirtu waxay jidhka ka ilaalisaa sumaha, waayo waxaa ku jira maadooyinka sodium, potassium iyo vitamin C. waxay kaloo timirtu daaweysaa dhiig la'aanta, sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka iron, copper iyo vitamin B2. dhinaca kalena timirta haddii aad ka cabanayso aabateed la'aan, timirtu waxa ay daaweysaa aabateed la'aanta, sababtuna waa maadada potassiumka ee ku jirta. sidoo kalena timirtu waxa ay daaweysaa jiljileeca lafaha, maxaa yeelay waxaa ku jira maadooyinka calcium, phosphorus iyo vitamin A. timirtu waxay kaloo daaweysaa itaaldarada guud ahaan iyo wadna xanuunka, waxaana ku jira maadooyinka magnesium iyo copper. timirta waxaa kaloo ku jira maadada loo yaqaano selenium, taasoo ka hortagta cudurka kansarka. sidaas daraaddeed baa dadka ku nool meelaha timirtu ay ka baxdo ama beeraha timirta haysta aysan u aqoon cudurka kansarka. dhinaca kale daawada, miyaad ka mid tahay dadka ka cabanaya sariirta ama beerta raaxada? haddaba timirta waxaa ku jirta maado daaweysa itaaldarada dhinaca galmada, waxaana la arkaa qofka timirta cunisteeda joogteeya ama caadaysta inuu helayo awood saa'id ah oo uu ku fasho beertiisa raaxada. dhinaca kalena timirta waxaa ku jirta maado caan ah oo loo yaqaano boron, taasoo daaweysa roobatiisamka iyo kansarka ku dhaca maskaxda. geesta kale timirtu waxay daaweysaa qalaylka dubka iyo indhaha guraxooda, waayo waxaa ku jirta maadada loo yaqaano vitamin A. waxay kaloo daaweysaa xanuunada ku dhaca mishiinka cuntada ridqa, waayo waxaa ku jirta maadada vitamin B1. waxay kaloo daaweysaa timaha daata iyo daalka indhaha iyo qalaylka afka iyo weliba infekshanka gala bishimaha ama dibnaha qofka, taasna waxaa sahlaya maadada vitamin B2 oo ku jirta timirta. dhinaca kalena timirta waxaa ku jira maadada daaweysa infekshanka gala dubka ama maqaarka jidhka. waxay kaloo timirtu daaweysaa dacarta caloosha, waayo waxaa ku jira maadooyinka sodium iyo potassium. waxay kaloo dhinaca kale timirtu daaweysaa xanuunada ciridka ku dhaca, waayo waxaa laga helaa vitamin C. haddaba daawade, geedka barakaysan ee timirta lama soo koobi karo faa'iidooyinka laga helo, waana geed cunto ahaan ka sokow loo adeegsado daawo ahaan, isagoo ka hortag u ah cudurro badan oo dadka asiiba. sidaa darteed diinteenna wanaagsan ee islaamku waxay dhiirigelisay isticmaalka midhaha timirta, isaga oo nebigeenni suubanaa maxamed sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyey inuu yidhi, ma gaajoodo cidda ay gurigooda taalo timiri. waxaanuu xadiiskaasi caddaynaya oo markhaati ka yahay ahmiyadda ay timirtu leedahay. sidaa awgeed timirtu waa cuntada ugu habboon ee lagu afuri karo soonka caafimaad ahaan, sababtoo ah waxay u roontay dheefshiidka, waana cuntada sida tartiibtaa calooshii u shiiddo. waxaana intaasii dheer inay dheecaanada iyo fitamiinada ku jira jidhka ay isu dheeli tirto markuu qofku muddo gaajaysnaado, waxayna sare u qaaddaa aabateedka qofka iyadoo gaajadana si dhaqsaa u yaraysa. waxaana intaasii dheer inay gaasta iyo aashitada caloosha ay ka ilaaliso inay dhaawac gaadhsiiyaan dahaarka caloosha. sidaa awgeedna waa inaan ku dadaalnaa inaan soonka ku afurno timir, inagoo raacayna sunnada nebigeenna suuban maxamed sallallahu calayhi wasallam.